$1,000 ninkii 10,000 gasho lahaa 700 milyan oo heli lahaa suuqaas marka maalin kasto saacad kasto sanad kasto wuxuu soo saaraa dad milyaneero soo saaraa oo aan u dadaalin inay milyaneero noqdaan lacagta meeshaas laga sameeyo mudan gudoomiye lagama sameyn karo apartmentiyo aad dhisatay wixii ka soo galo ma ka sameyn kartid lacagta meeshaas laga sameeyo kama sameyn kartid mushaar aad qaadatay wixii aad meel ka dhigtay kama sameyn kartid dad badan oo ka faa'iideystaa jiro ayagoo da'dooda yaraa waalidkooda lacag ka qaatay suuqaas maal gashtay markay 20 sano gaareen ay milyaneero yihiin mudan gudoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh wajigaas koowaad waa wajiga investmentiga waa يعني waxyaalaha kale oo suuqa uu ku fiican yahay waxay tahay hadda bangi marka tagtay 10,000 isii marka dhahdid 100,000 haday kugu jirto 10,000 isii hadaa dhayd laba bir kadib isoo noqo kulay ma helaya macna laakiin saacad kasta iyo daqiiqad kasta ayaa waxaad la soo bixi kartaa ama lagu soo diri kartaa milyan iyo wax ka badan adigana aad diri kartaa lagu soo diri karaa waana diri kartaa macna wax ku celinaya ilaahay uun tamale kaliya waxa u baahan tahay internet waxa u baahan tahay computer ama telephone iyo waxa u baahan tahay lacagtaad maalgashanaysa kaliya mudan gudoomiye markaan investmentiga meeshaas ugu baxo wajiga labaad oo suuqan lagu faa'iideysto waxay tahay inuu qofka ka trade forex-ka camal yani suuqa markuu kacana inuu gato markuu soo raqiisoobana iska iibiyo waxa laga yaabaa dadka qaarkood 10,000 20,000 hadba waxay haystaan inay suuqa geliyaan daily trader Allah subax inuu soo kaco qolkiisa jiifku ka soo kaca qol kale ku dhagan computerkiisa bas uu tagaa sidoo u soo xiranaysa inuu nin shaqeyn rabo camal shaqan uma socdo computerku ka dhax shaqeyn rabo macna 10kiisa kunuu la galaa suuqa aqoon iyo xirfad ay ku dhisanta suuqaas waxay ku dhisantaa xisaabaad la yiraahdo algorithm ku dhisantaa ma aha gambling ma aha sida wanex bitco kale laba kooxda weyn ayaa markaas saadaalna inay badinayso meeqa dhacdo marka kooxda yar inay tunto kooxda weyn ay ka badiso gambling way taas macnaha waa baqtiyaa nasiib tan laka baqtiyaa nasiib ma waa aqoon ay ku dhisan tahay xirfado la isticmaalo way xirfadaas soo baranay youtube-da ku jiraan ayadoo ingiriisi ayadoo carabi ah luqad kasta waa ka helay marka soo baratid suuxi waa soo fariisanay sessionka inuu furma fiirsanay New York London labadaas bangiga laga tareed garaya marka soo gashid suuqa marka aragtid aqoontaada ay ku tusto in la bay gareenayo waa bay gareen adeegna waa soo iibsanay macnaha waa soo iibsanay marka soo iibsato suuqigu dhaqaaqa bangiyada caalamka iibsanayo tareenka socda dhinac ka raacay adoo $1,000 wadayay iyo wax ka yar faa'iidadaada markuu ku gaaro marka xaddi waa kala bixay waa iska iibinay farqiga marka faa'iidada waxay tahay intaad gelisay iyo inta uu kacay markii la kala jaro faa'iidada intaas waa diiniyan xaraan ma aha tusaale ahaan baawura ka soo iibsatay Dubai $5,000 ku soo iibsatay xamara keentay 5,000 ma joogay 10,000 laga siinaa markii la kala jaro marka faa'iidada meeshaas ka soo baxaysa waa faa'iidada adiga aan leedahay waa trade waaye waa ana yani al-bay' wa shiraa wajiga saddexaad mudan gudoomiye waa wajiga hadda kiiskan loo taagaya waa sarifaad qofka inuu ka sarifo lacag waxa jirto dad badan oo malaayiin haysto adduunyada jooga laakiin aan la safri karin aan soo qaadi karin oo xamar la imaan karin lacagta lama ogolo saa darteeda lacagta waa qabanay tusaale ahaan Dubai ayaa joogta 1 milyan haysataa lacagta waa qabanay dirham u bedelay dirham marka u bedeshid waxa geynay bangiyada oo USDT dan isticmaalo Binance jiro shirkadaha ugu waaweyn akoonkaaga ku shubanay waxa u baahan tahay kaliya in akoon furato farfaydna uu ku yahay oo KYC-gaaga la yaqaan intaas bas u baahan tahay lacagtaada la soo tagay marka inta la imaanay xamar diyaarada soo raacday milyan telefoon ku wadata cid ku baaraysa male cid ku daba socota male cid ku rabtana male dawlad ku daba galeysana ma jirto haddaan transaction maanta 50,000 sameeyo dawladii daba kacayso oo dhays 50,000 inta u wadi inta kaaga timid su'aalaas ku weydiinaysa ma jirto marka dad waxa jira marka Soomaaliya aad loo fahmay lacagtaas dad badan oo waxa jira ka ganacsado qofku wuxuu rabaa marka USDT oo ah halka USDT waa $1 u dhigma stable coin Allah ma dhaqaaqdo macnaha halka USDT oo $1 ah waxa laga yaabaa qofka inuu rabo inuu suuqa lacag la galo oo ku yiraahdo waxaan rabaa 100,000 USDT suuqa raba inaan galo ma helaya marka xamar uu jooga adaa ka saacidaysid 100,000 waalidkiisa ugu diray asiga lacagtu hay kaash ahaan bangigaaga caadiga Salaam Bank ama wuxuu kugu diraa Premier Bank lacagtaada caadiga USDT maxaa haysataa ayadoo caadi ah akoonkaaga kugu jirtaa saasay tahayna waxa saaranay lacag sarifaada oo $2 $100 $3 $4 faa'iidana waa haysataa lacagtaada originalkana waa haysataa marka waxaan rabaa in maxkamaddu saa u fahantay audience-ga meesha fadhiyo cryptocurrency wax la yiraahdo saas waa